muuqaalkan waxaa ka faa'iideysan kara kaliya dadka mardhoofka ah oo aanan weligood garoon diyaaradeed aanan ka dhoofin luqadda Englishkana aanan aqoonin. Haddii adigu aadan ahayn qofkaas, videogan adiga kuma quseeyo. Goobtan waa goobta ugu horeyso. Ogsoono goobtan waxay kaaga baahan tahay inaad haysato muddo 2 saacadood waqtiga diyaaradda ay baxayso ka hor. Waayo waxaad u baahan tahay in aad ku tala gasho waqtigaasi inuu kaa dhici karo. Haddii uu kaa dhacana fursad kale ma jirto oo diyaaraddu way tegaysaa. Diyaaraddu waqti bay ku baxdaa, waqti bayna ku timaadaa. Ma jirto cid goonin loo sugo. Meeshaan magaceeda waxaa la yiraahdaa Passenger Check-in Conveyors Weighing Scale. Qof kasta oo safraya oo diyaarad raacaya waa inuu halkan soo maraa si uu isaga sameeyo dhammaan waxaa lagu siinayaa body passka oo ah tikitka diyaaradda meesha aad ka fariisan lahayd. Boorsooyinkaaga ayaa lagu cabirayaa. Meesha marka waxaad kaga gudbaysaa adigoo baasaboorka lagaa jeegareeyay, body passki aad wadato diyaaradda meesha kursiga aad ka fariisan lahayd, boorsadii lagaa cabiray. Marka waxaagii ku dhameystiran ayaad goobtan ka dhaqaaqaysaa, kadibna waxaad aadaysaa qaybta departureska ayaad aadaysaa. Marka hore isku day inaad fahamto labadan tilmaam oo ah labada tilmaam ee ugu muhiimsan. Sidee bay ugu muhiimsan yihiin? Waxay ku kala tilmaamayaan dadka soo degayo iyo dadka duulayo. Waxaad u baahan tahay in aad raacdo midkan diyaaraddiisa ay kor u jeedo. Ogow garoon markii aad ka baxayso waa meel mashquul badan oo qof walba tiisa uu u cararayo. Laakiin sida badan dadka oo dhan way kala ordayaan, qofba jaha u socdaa. Marka waa inaad raacdaa jahada aad u socotid. Calaamadahana waa inaad aqoonsataa. Markii aad duulayso marka waa inaad raacdaa falaartan tooskaaga u socay ayay ku leedahay. Tan hoose waxay ku leedahay dhanka midig aad. Marka maadaama aad dhoofayso oo departure aad tahay waxaad raacaysaa middan tooska ah. Mar walbana indhahaad ku haynaysaa markii meel isgoys yar uu yimaado isla eelaboorka gudihiisa ah waa inaad eegtaa calaamadii derbiga siday ugu dhagan tahay. Hadday leexatay waa inaad la leexataa. Haddii ay toostay waa inaad la toostaa. Haddii ay kor kula fuusho waa inaad kor la fuushaa. Tusaalahan oo kale ayaad wajahaysaa qaabkan oo kale. Waxaad u jeedaa dusha sare waxaa ku qoran qoraalo kala duwan ayaa ku qoran. Marka saa daraadeed waa inaad raacdaa kan adiga kaa quseeyo oo kaliya ilaa aad ka gaarto halkii aad diyaaradda ka raaci lahayd. Mar walba body passka waa inaad sidaan oo kale aad u dhexgelisaa baasaboorka gudihiisa, waayo waxaa kugu qoran macluumaadka aad u baahan tahay oo dhan. Markii aad boarding passka soo qaadato waa in aad eegtaa gate-ka aad ka baxayso. Gate waa iridda aad ka duuli doonto lambarkeeda. Halkan kor waxaa ku qoran all gates, iridaha oo dhan waxaad u aadaysaa dhanka bidix. Marka waa inaad markaan oo kale bidix u leexataa oo aad falaarta raacdaa. Ogsoonow boarding passkaaga waxaa kugu qoran geedadkan mid ka mid ah inaad ka bixi doonto. Marka all gates marka lagu dhaho dhammaantood dhankan bidix baa loo aadayaa. Hadhow kaagii meel dhuxuu ka leexan doonaa. Waa inaad isha ku haysaa lambarka aad haysato. Waa kan body passka. Halkan waxaa kaga qoran magacaagii. Halkan waxaa ku qoran gate B25 inaad ka baxayso. Saacadda aad baxayso waxaa ku qoran 17:05. Fadhiga diyaaradda aad fariisanaysana waxaa kugu qoran 20A. Diyaaradda aad raacaysana waxaa ku qoran flight number. Waatan sidan ayuu ugu qoran yahay. Waxaa halkan ku qoran in la xirayo gate-ka 10 daqiiqo waqtiga diyaaradda ay duulayso ka hor. Mar haddii la xiro dib looma furo. Ha fariisanin adigoo aanan helin gate-ka aad ka dhoofi lahayd. Markii aad gate-ka hesho waxaad heli doontaa fadhi iyo wax walbaba. Waad ku mahadsantahay inaad daawato muuqaalada aan soo saaro. Subscribe, like and comment. Mahadsanid.